بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan hambalyo uga dirayaa maanta oo ay soo gabagabowday natiijadii horraacda ahayd ee dhammaan gobollada Somaliland doorashadii ka qabsoontay 11 May xildhibaanada ku guuleystay dhammaantood gole deegaan iyo gole baarlamaanba. hambalyo ayaan leeyahay, hambalyo. waxa Ilaahay mahadiya in nabadgelyo ugu qabsoontay doorashadu, nabadgelyo ugu dhacday, nabadgelyo ku dhawaaqideeda ay ugu gabagabowday oo waxa Ilaahay lagu mahadiyaa. waxa mahad labaad iska leh ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee sugaya amniga goobaha doorashada ilaa maanta oo doorashada lagu dhawaaqay degmadii ugu dambeysay iyo gobolkii ugu dambeeyay. waxaan iyagana la hilmaami karin mahad aad u baahan u jeedinaya komishanka doorashooyinka qaranka oo ugu horreeyay gudoomiyahooda Cabdirashiid Raac. waxay muujiyeen dadaal dheeraad ah, waxay muujiyeen cadaalad. waxaan qabaa komishankii ugu cadaaladda badnaa intaan arkayay komishan doorasho waddanka inta ka dhacay waan soo taagnaa. waxaan qirayaa inay yihiin komishankii ugu hawlkarsanaa uguna cadaalad badnaa. ilaahay garabkiina ha galan leenahay, ilaahay miisaanka xasanaadka isku daraan leenahay. si cadaalad u muuqato u eeg oo u dhabahoo ah bay u muujiyeen arrintaa. waxaan u soo noqonayaa gabagabadii. waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa xildhibaano badan waran ka soo baxay oon asxaab nahay, qaar kala ismid ahayn. ugu horreeya xildhibaanka ugu codka badan Jamhuuriyadda Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge oo ah saaxiibkay, walaalkay, kala ismidkaygii. aad iyo aad baan ku hambalyaynayaa in Ilaahay kaa dhigo oo ku guulaysto maayarka caasimadda oo kugu ducaynaa. waxaan leeyahay beelaha kale Somaliland aan ku ixtiraamno maanta doorka lagu ixtiraamo reer Hargeysa haddaynu nahay ninkaa lagu ilaaliyaan leeyahay. intaana dadkan farayaa waxaan leeyahay oon si gaar ah u hambalyaynayaa musharaxiinta gobolkan Hargeysa ka soo baxay ee ugu horeeyo Axmed Yuusuf Nuur Guruuje, Saciid Maxamed Ismaaciil, Jamaal Aadan Diiriye, Yaasiin Cumar Cabdi, Axmed Yuunus Aadan iyo Ismaaciil Sheekh Aadan. si gaar ah iyagana u hambalyaynayaa. Xuseen Ismaaciil iyo Faysal Cabdiraxmaan si gaar ah u hambalyaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.